Noloshu waa hadba meesha dadaalkaaga nafeed, hawlkarnimeed, isdiibid la'aanteeda iyo kartidaada ku geyso. Gabadhani waxay ka mid tahay tusaalaha nool ee aadamuhu ka haysan karo qof nolol faqri ah ku dhashay ma gaari karaa nolosha halka ugu sareysay. Kusoo dhawaada muqalkena maanta. Magaciiguna waa Cabbaas Mustafa. Haweenaydan waxaa lagu magacaabaa Zhou Qunfei. Waa Chinese. Waxayna ahayd ilmihii ugu yaraa 3 caruur ah ay dhaleen qoyska fuqrada ah. Aabaheeda oo reerkeeda u shaqayn jiray iyadoo aan dhalan ayuu indhaha beelay. Qayb ka mid ah farahana beelay. Kadib shil ka soo gaaray warshad oo ka shaqaynayay. Hooyadeed iyadoo 5 jir ah ayay geeriyootay. Dantu waxa ay ku qasabtay iyadoo ilmo ah inay reerka u shaqayso. Waxa ay xoolaha u raaci jidhay dadka xaafadda si lacagta ka soo xarooto ay qoyska uga kabto. Isla xilliga ay waxbarashada ku jidhay oo waxa ay ahayd qofka kaliya ee qoyskooda ka tirsan ee waxbarashada ku gaara dugsiga sare. Nasiib daro markii ay 16 jir ahayd ayay iskaga hartay waxbarashadii maadaama xaaladdu ku adkaatay. Waxay soo aaday magaalada Shenzhen si ay uga shaqayso. Magaaladaas oo adeerkeeda degnaa ayay warshad ku taal ka shaqayn jirtay. Kadib muddo sanad ah waxay aruursatay xoogaa lacag ah iyadoo shirkad u gaar ah samaysatay. Waxa ay samaysay dhowr isku day oo ganacsi ah oo ilaa 11 shirkadood ayay samaysay oo ay ku guuleysan weyday. 2003 ayay aasaastay shirkad ay ula baxday Lens Technology. Waxa ayna soo saartay saacadaha dhalada iyo muraayadaha. Shirkadeeda ayay balaarisay oo noqotay mid samaysa dhalada moobilada, tan saacadaha iyo agab kale. Shirkadeedu waxay u samaysaa dhalada moobilada shirkadaha Apple, Samsung iyo Huawei. Waa 3 shirkadood ee caalamka ugu waaweyn ee moobilada soo saara. Sidoo kale saacadaha ay shirkadaha soo saaraan ayay dhaladooda samaysaa. Adigan muuqaalkan daawanaya waxaa macquul ah moobilkaaga dhaladiisa inay iyada soo saartay. Maanta Zhou Qunfei waa haweenayda ugu hodansan guud ahaan Shiinaha. Sidoo kale waa haweenayda ugu hodansan dunida iyadoo hantideeda tabcatay. Sidoo kale waa haweenayda ugu hodansan dunida haweenka tiknoolajiyada ka ganacsada. Waxa ay haysataa hanti kor u dhaafaysa 15 bilyan. Maanta gabadhaas hantidaas haysata waxa ay ku dhalatay faqiirtinimo. Waxbarashadeedii ayay kaga hartay si ay nafteeda iyo nafta walaalaheeda u qoodiso. Noloshu intaas uguma harin. Hooyadeed iyadoo caruur ah ayay geeriyootay. Sidoo kale aabaheed ayaa iyadoo aan dhalan curyaamay. Xoolo raacnimo ilaa bilyaneernimo nolol u dhaxaysa ayay soo martay. Maanta waa hooyo 2 caruur haysata oo 51 jir ah.